السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا ku xiran xogaye media kusoo dhawaada qaybtii labaad ee taariikhda Soomaaliya. 21 Oktoobar 1960 Major General Maxamed Siyaad Barre iyo ciidamada qalabka sida waxa ay la wareegeen talada dalka waxayna inqilaabeen xukuumadii ra'iisul wasaare Maxamed Ibraahim Cigaal kadib dilkii madaxweynihii qaranka Cabdirashiid Cali Sharmaarke 15 Oktoobar 1969 uu ku dilay mid ka mid ah ilaaladiisa magaalada Laascaanood. 1 Janwari 1973 xukuumadii militariga waxay ku dhawaaqday in afka Soomaaliga la qoro. bishii Agoost 1974 ugu yaraan 20,000 oo macallimiin Soomaali ah ayaa ka qayb galay ololihii horumarinta reer miyiga. June 1976 xukuumadii militariga waxay abuurtay xisbigii hanti-wadaaga kacaanka Soomaaliyeed wuxuu ahaa xisbiga kaliya ee loo ogolaa dalka xilligaas. xukuumadda militariga waxay ku dhawaaqday in ragga iyo haweenku siman yihiin waxayna abuurtay xoogag cusub oo aan horey loo aqoon sida guulwade. 1977 ilaa 1978 waxaa socday dagaalkii gobolka Waqooyi Galbeed ee dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya. Abriil 1978 koox ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa isku dayay inqilaab dhicisoobay. December 1979 xukuumadii militarigu waxay qabatay doorashooyin baarlamaan laakiin golihii baarlamaanku wuxuu ka yimid hal dhinac oo ahaa dhinaca xukuumadda. February 1982 Major General Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya wuxuu booqday Washington. xilligaas waxaa xabsiga laga sii daayay ra'iisul wasaare Maxamed Ibraahim Cigaal waxaase xabsiga loo taxaabay siyaasiyiin kale oo ay ku jiraan qaar ka mid ah golihii wasiirada. siyaasiyiintan markan xabsiga loo taxaabay waxaa ku jiray Dr. Maxamed Aadan Sheekh, Major General Cumar Xaaji Masala oo labadaba ay aad isugu dhawaayeen madaxweyne ku-xigeenkii Ismaaciil علي أبو بكر iyo ra'iisul wasaarihii arrimaha dibadda Cumar Carte Qaalib. dhalashadii dagaaladii looga horyimid madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. 6 Abriil 1981 waxaa London lagu aasaasay ururkii SSDF ee ay taageerayaashu u ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida aqoon-yahanadeeda iyo indheergaradkeeda. July 1982 ciidamada militariga Ethiopia oo ay caawinayeen jabhadii SSDF ayaa weerar ku soo qaaday bartamaha Soomaaliya. Ethiopia waxay daneynaysay inay Soomaaliya laba u kala goyso. Balanbale iyo Goldogob waxay gacan galeen Ethiopia waxayna xukuumaddu ku andacootay in magaalooyinkan lagu xasuuqay shacab badan oo Soomaali ah. isla xilligaas mucaaradku waxay ku doodeen in shacab badan oo Soomaali ah ay xukuumaddu ku xasuuqday gobolka Mudug gaar ahaan agagaarka magaalada Gaalkacyo. xilligan wadamada reer galbeedku waxay kaalmo military iyo mid dhaqaalaba siiyeen xukuumadii Major General Maxamed Siyaad Barre. 1984 waxaa socdaal qarsoodi ah ku tagay Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Koonfur Galbeed Rowlef Botha wuxuuna ballan qaaday kaalmo military haddii diyaaradaha Koonfur Afrika ay ka soo degaan Soomaaliya. 1986 Soomaaliya waxay wax ka aasaastay urur goboleedka IGAD oo lagu aasaasay Djibouti. xilligan Major General Maxamed Siyaad Barre wuxuu kala kulmay Djibouti Mingiste Hayle Mariam madaxweynihii Ethiopia xukumayay. 23 May 1986 madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu galay shil baabuur oo uu si xun ugu dhaawacmay. madaxweynaha waxaa lagu soo dabiibay wadanka Sacuudi Carabiya oo loogu soo daweeyay. November 1986 madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa loo caleemo saaray 7 sano oo kale. 99 boqolkiiba codad dhan ayuu ku dooday in loogu codeeyay ereygaha. laakiin xilligan waxaa dalka ka socday dagaalo sokeeye. dad badan oo Soomaali ahina waxay ka horjeedeen nidaamkii xukuumadda militariga. 1987 hay'adda u dooda xuquuqda bini'aadamka ee Amnesty International waxa ay ku eedeysay rajiimkii Maxamed Siyaad Barre inuu ku xadgudbay xuquuqda bini'aadamka. tani waxay keentay in Koongareeska Mareykanka
gooye kaalmadii uu siinayay master siyaad iyo xukuumaddiisa. 27 May 1988 ururka SNM oo uu hogaaminayay master Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo mar soo noqday madaxweynaha Somaliland 9 sano ee la soo dhaafay wuxuu qabsaday caasimadda gobolkii Togdheer ee Burco 1988. isla ururka SNM wuxuu qabsaday qaybo badan oo muhiim ah oo ku yeelay Hargeysa. xukuumaddu waxay xilligan xoog military u adeegsatay duqeyn lixaad lana u geysatay labadaas magaalo. sidoo kalena mucaaradku waxay iyana dhankooda dagaalka ku ballaariyeen goobihii rayidka. dad Soomaaliyeed oo aad u badan ayaa u qaxay Ethiopia, kumanaan kalena waxay ku dhinteen dagaaladaas. 1 July 1989 waxaa Muqdisho lagu toogtay madaxii kaniisadda Katholiga ee Muqdisho Salvatore Colombo. ilaa hadda lama helin cidda dilkaas ka dambeysay. isla xilligan waxaa socday dagaalo sokeeye oo u dhaxeeyay xukuumadda iyo mucaaradka, gaar ahaan gobolada dhexe oo la rumaysan yahay in dad badan oo shacab ah ay ku geeriyoodeen. 14 July 1989 ciidamada koofi guduuda ayaa cagta marsiiyay mudaaharaad ay sameynayeen dad Soomaali ah oo ka caraysnaa xarigii loo geystay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi. waxaa la rumaysan yahay in dad badani ku geeriyoodeen. 15 July 1989 waxaa xeebta Jazeera lagu xasuuqay ilaa 47 qof oo Soomaali ah waqooyiyaan ah, waxaana lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu xumaa ee lagu xasuusto xukuumaddii militariga. tani waxay keentay in xukuumadihii reer galbeedka ay iska fogeeyaan Major General Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumaddiisii. 6 July 1990 waxaa isna dad badani ku geeriyoodeen mashaqadii ka dhacday Stadium Muqdisho, garoonka kubadda ee Soomaaliya. 13 July 1990 waxaa dil toogasho ah lagu xukumay 46 ka mid ahaa dad siyaasiyiin ah oo ka soo horjeestay President Barre. kooxdan waxaa lagu magacaabay Manifesto Group. dhammaan dadaaladaasi ay soo galeen jabhadii SSDF iyo SNM midna kuma aanu guuleysan inuu xukunka ka tuuro taliskii Maxamed Siyaad Barre. waxaase soo baxay jabhadii USC oo taageero ka heshay dad degan gobolada dhexe iyo Banaadir. USC waxay dagaalo goosgoos ah kula gashay ciidamada dowladda kacaanka gobolada dhexe ee dalka. waxa aysan markii dambe dagaal ka fool ah ay ka bilaabeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxa ayna maalmo kooban gudihiis ay ku guuleysteen in ay xukunka ka tuuraan General Maxamed Siyaad Barre. halkaasna dalka Soomaaliya waxa uu ku noqday dowlad la'aan aanu ka soo kaban muddo 30 sano ah.